رئيسل وزراء حكومة فدرالك Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta shir gudoomiyay kulan looga hadlayay xaaladda amniga dalka iyo cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya muddada dheer. Mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga iyo amniga gudaha ayaa ka warbixiyay howlgallada dib u xoreynta oo ilaa hadda guul waaweyn laga gaaray, gaar ahaan gobollada Galgaduud, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Howlgallada lagu xibtirayo kooxda argagixisada ayaa lagu dilay in ka badan 2,000 oo shabaab ah afartii bilood ee ugu dambeysay. Ra'iisul wasaaraha ayaa xusay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay ciribtirka shabaab oo hadda waqtigooda uu gabaabsi yahay. Waxa kale oo uu sheegay in xukuumaddiisa dadaal gelin doonto sidii ay ugu guuleysan lahayd in dalkeena laga qaado cunaqabataynta hubka. Shirka ayaa lagu soo jeediyay dhistaan guddi ka kooban 2 heer oo kala ah guddiga fulinka, guddiga farsamada oo ka shaqeyn doona fulinta bartilmaameedyada qorsheysan ee dowladda Soomaaliya ku xaqiijinayso in dalkeena si dhameystiran looga qaado cunaqabataynta hubka, taasi oo lagu fulin doono muddo sanad gudaheed ah. Shirka ayaa intuu socday waxaa sidoo kale lagu gorfeeyay hindisada sharciyeedka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, hindisada sharciyeedka la dagaalanka argagixisada iyo hindisada sharciyeedka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya. Abdullaahi Lamaane, Safari TV, magaalada Nairobi.